shirkan jaraa'id waxaan kaga hadlaynaa waa la ogaa waqtigii la soo maray Somaliland waxay ku dhisan tahay nidaam dimuqraadiyadeed oo ka kooban axsaab nidaamka axsaabta badan ayay ku dhisan tahay oo dimuqraadiyadduna had iyo jeer waxay u baahan tahay doorashadu inay muddadeedii ku qabsanto oo golaha markaa la doortaa ama cidda la doortaa in muddaxileedkeeda muddada ay ku jirto lagu diyaariyo ciddii sidii loo heli lahaa isbeddelkii ama ciddii marka uu muddaxileedku ka dhammaado bedeli lahayd taasi marnaba maynaan arag shantaad doorasho ee dhacday inay inoogu qabsanto doorasho kasta muddadeedii waxaana odhan lahaa maaragtay dimuqraadiyaddii waxa la kudhoon gashay ku noqotay muddo kordhin had iyo jeer ay sameeyaan golaha guurtida ayaa ku noqotay la kudhoon gashay golaha guurtidu iyaga laftooda ayay ahayd in la doorto waana kuwa ugu muddada dheer ee aan weli aan lagu soo dooran one man one vote aan lagu soo dooran weeyi waxaan odhan karaa muddo 18 sano ku dhow ayay ku fadhiyaan kursiga marna ismay odhanin inkastoo odayaashii badankooga ay dhinteen oo maanta dhaxal sugayaal iyo nin kursi ka riixday ay ku fadhiyaan maanta marna ismay odhanin oo bal mar uun halaynu doorto golihiina soo doortaan maaragtay ummaddu golo laakiin nidaamku ku samaysan yahay waxa weeye waa siciimiinta mandaqadan maaragtay Somaliland haddii ay wax dhacaan marjac ahaan loola noqdo weeye sidaa darteed maadaama ay odayaal nabadeed iyo dhaqan yihiin waxaa loo baahan yahay wixii la isku raacsan yahay in ay taageeraan mar walba laakiin iyadoo wax khilaafay jirin iyo ama wax la isku haystaa jirin inay iyagu wax dibadda ka keenaan ama jeebkooga ay kala soo baxaan maaha sidaynu la wada socno waynu ogeyn doorashadu waxay u baahnayd diiwaangelintu waxay lafdhabar u tahay doorashada wanaagsan ama xor iyo xalaasha ah ayay lafdhabar u tahay diiwaangelintii 2013 ayaa maaragtay laga wada hadlay saddexda xisbi qaran xukuumadda iyo deeq-bixiyayaasha ururada bulshada dhammaan waxa lagu heshiiyey bay ahayd in diiwaangelinta madaniga ah diiwaangelinta maaragtay codbixinta la qabto kadib xukuumadda waxay soo dhigtay diiwaangelin madaniga waad moodayso inay ku yar dabrayso laakiin waxa lagu heshiiyey waqtiga in laba diiwaangelinood ay kala madax bannaan yihiin iyadoo caynkaasa oo madaxweynuhu ku kofargareeyey leetar warqadu maaragtay ku kofargareeyey uu leeyahay arrinkaas sideeda ha loo qabto ayuu mar labaad haddana xeerkii baarlamaanka uu gudbinayey ayuu dabar isaga dhigay inuu yidhaahdo qofkii madaniga qaata unbaa codbixintana gelaya arrintaasi waxay noqotay in gelli lagu yoyotamo in la isku qabsado laakiin nasiib wanaag markii dambe waxay u dhacday in ay ka heshiiyaan saddexda xisbi qaran iyo xukuumaddu oo laba diiwaangeliyo sidii marka hore lagu heshiiyey la kala madax banneeyo taas iyadoo sidaas ah ayaa mar labaad baarlamaanka dhexdiisa haddana xeerkii markii la ansixinayey ay baarlamaanku ama golaha wakiiladu ay diiwaangelinta goormaa la qabanaya 6 bilood gudahood iyo 6 bilood kadib bay ku marnaan haddana waa waxa 9 bilood biirsan bay ahayd wax iska mas'ala daciif ahayd gelin baa lagu marmay kadib
si kastaba haatee inkastoo waqti lumayo haddana way ansaxantayoo gudaheenu baynu ku dhamaysano cid ina soo fargelisay ma jiro weli inta ay Somaliland marmaysay cid dibadda ka timid waxaan xasuustaa 2009kii waqtigii Rayaale lagu lahaa doorashada waqtigeeda ku qabo waqtigaas ay soo fargeliyay maaragtay beesha caalamku kadibna waa tii qodob lagu heshiiyey sidii waatay ku soo gashay laakiin Saleebaan golaha guursiga waqtigaana ahaa sida maanta uu degdegayo uu soo degdegay markii ay axsaabta iyo xukuumaddu ka wada hadleen lana dhexdhexaadiyay beesha caalamku dhexdhexaadisay kadib wixii ka soo baxay uu ku amal ku leeyahay oo ku dhawaaqay tanna waxa uu laga rabay inuu sugo muddada waqtiga ay maaragtay xisbiyada qaranka iyo xukuumadda iyo ururada bulshadu ay maaragtay waxay isku soo afkarsan ama isku khilaafaan kadib oo ku amal falayo oo ku khilaaf jirana oo dhexdhexaadiyo haddii aanu khilaaf jirin sida uu asixiyay iyadoo halka maraysa komishankii hore markii uu ka tagay komishanka cusub dib kooban buu joogay kadib muddadii koobneed uu joogay wixii qabyo ka doorashada inay dhameystiraan oo jadwalkooda samaystaan iyaga ayaa xaq u lahaa annaguna haddaan axsaabta qaranka nahay waanu leeyahay ururada bulshaduna way nagala soo qayb galeen iyaguna way nagu waafaqeen baahay xukuumaddu sidoo kale waa la isku wada raacsanaa iyadoo halkaa maraysa ayaa doorashadii ay ka dhigeen kowda maaragtay 2016 bisha July mise June meelahaas halkaa markaa marayso ayuu Saleebaan soo duulay oo wax alle wax siidanayna jirin kadib markii uu yimiday wuxuu gaargaar ula kala shiray axsaabtii xukuumaddii ururad ayuu komishankii ayuu gaargaar ula kala shiray kadibna wuxuu ku dhawaaqay muddo kordhin aan looba fadhiinba oo ilaa 2 sano ku dhow ayuu ku dhawaaqay waxa la ku saleeyay aanu kala tashan dadkii arrintan ay khuseysay kadib waxaa moodaa in Somaliland bislaatay arrintii way ka wada hadleen axsaabta qaranka iyo xukuumadduba waa laga heshiiyey waxay soo saareen muddo December in dhexdeeda lagu qaban karo doorashada maxaan ku macnayn karnaa hadda Saleebaan markuu maanta leeyahay waxa la isku waafaqsan yahay anigu ma ogoli taydii uma sharciya haddii uu khilaaf jireen isagu dhex galayahay haddii aan degmooyin doorashooyin laga qaban waa waxyaabaha uu golaha guursiga u samaysan yahay maanta muddo kordhinta guursiga ay dastuuriyan leedahay ayaan doonayaa bulshada inaan u bayaaniyo guursiga waxa siinaya muddo kordhin qodobka 42aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkaas wuxuu dhigayaa afar waxyaabood markay dhacaan waa dhulgariir waa abaaro waa masiibooyin kala dabiiciya iyo wixii la mid ah ilaahay nagu keenin waana ka nabad qabnaa taas marka ma taalo maanta qodobkaas ma yaalo qodobka 3 ayaa isaguna siinaya biqadiisa shanaad waxay leedahay haddii amni darro ka dhacdo dalka dhexdiisa oo amni darro weyn oo dee saameyn ku yeelta qaranka ay noqoto taasna guurtidu inta la xallinayo ama dal meeshaas ay xasilayso doorashada dib loo dhigi karo inta kaliya guurtidu ay maanta dastuuriya xaq leh waa labada qodob ayuu dastuurku ku fasaxayaa حق مرها إن اللالان حق ما يلاه إن اللالان هدي كنت يدور شوي كقرن يلاهدون وقت كاسر وقوق ما كرنا دور شذا يجوا حق ما يلاهين إن اللالان إن اللالان ماركسي هي ده دستور جا يجوا حق ولا إن دور شذا قبسوا جدا عين ثم على قبسوا يسوي
sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa guddoomiyaha guurtida jamhuuriyadda somalilan mudane Saleemaan Maxamed Aadan inuu dalka u tulo inaanu dalka waa oday weyn waa muxtarim waa maanta odayga ugu daaweynaa baan oran karaa maadaama guurtida hayso golayaasha qaranka Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inuu raaco taa la isku waafaqsan yahay haddii ay taa u dhici weydo oo Saleemaan ku adkaysta halkaa waxay noqonaysaa in madaxtooyadu ay digreeto ku soo saarto wixii lagu heshiiyey haddii uu taa wax ku qaadan waayo waa in maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Somaliland fasirto cidda uu dastuurku waajibka u siiyey inay wax kordhiyaan iyo inuu Saleemaan sax ku taagan yahay iyo inuu bulshadu sax ku taagan tahay ama ummaddu ay sax ku taagan tahay xisaabta qaranka xukuumadda iyo ururada bulshadu waxaan isku raacsan yihiin iyo Saleemaan midka khaldan waa in ay maxkamadda dastuuriga ee sare ee jamhuuriyadda Somaliland ay iyadu fasirto dastuurku cidda uu fasaxayo